ugu horeyn ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan mahadinaynaa mar labaad magaca dugsiga Nuur iyo ardayda macallimiin waxaan soo dhaweynaynaa waalidiinta wasaaradda waxbarashada jaamacadaha gobolka Awdal oo maanta iyaguna martiin ah iyo salaadiinta gobolka ay nagala soo qayb gashay qalin jabinta curadkii labaad ee dugsiga Nuur أنا أقول الله يا أخي معلم مامولها دكسي نور ما أنت كعود الضاتي جعلنا نفقه محن فرايدين فرح حفلة وحن لا إله سبحانه وتعالى هكذا دفعة مباركة يعني قيبت الله دكسي صاري ومدد وبركيسن وقبل كيوم ضوح كبدش ونلشوا ذي توالد كوح كبدش ولا فوضى وحق صدا أقونت ذنكو انتفاعا marlabaadka waxaan u hambaliyaynayaa ardaydan marxaladii secondary-ga ka gudbaysa ee maanta xaflad ahaan lagu sagootiyayo marxalad jaamacadeedna u gudbaysa aad iyo aad baan idinku hambaliyaynayaa jaranjarada horeed ka soo baxdayna soo dhammayseen 4 sano ayaa idiin dhammaaday oo runtii hawsheeda lahaa dadaalkeeda lahaa waalidkuna aad idigu soo taxabayeen ayaad soo marteen waa marxalad runtii la xasuusan karo oo aad idigu weyn waalidkana ku weyn oo aad iyo aad u qiimo leh waxaan rajaynayaa wali waxa idin hadhay imtixaankii oo aad geli doontaan dugsigan Nuur sanadkii qoladii sanadka idiga horeysay qoladii labaad baad idigu tii tabcatii labaad qoladii idiga horeysay runtii imtixaanka meel fiican waxay buujiyeen liifkii ama GCD kaalin aad u muuqata bay ka galeen waxaan umaleynaya 4 iyo 5 arday u horeeyay inay baan umaleynaya Nuur salaanta kadib haddaan yarka xiriiriyaha waxoogaa in yaraan iraado murtida soo geysay ee suureysay oo camba qalbigayga saanto salaam baan ku leeyahay sacab baan ku tumay bilad baan ku siray inta tan isaga odanaa inta kadib runtii warta waa farxad qaaliya jiilka maanta waxayna waxa weeyii waa midho aad loogu hanweynaa waa midho walaalahood kaalin yacni la taaban karo gobolka iyo dugsiga iyo ummadaba ay ka galeen iyagana waxa leeyahay waa tusaale fiican baad haysataane marka tusaalaha fiican inaad ka badisaan mooyee kolay ma rajaynayo inaad ka hooseysaan tusaalaha fiican ee gobolkana yacni magaciisa sare u qaaday isuulka magaciisa sare u qaaday idinkana guud ahaan martabadiina yacni ummadda ku soo jeediyey oo wax lagu farxo idinkana waxaan idiin rajaynaynaa waa barbilow fiican oo maanta dugsigii sare aad dhammaysanaysaan dugsiga sarena waxa weeye waa lafdhabarta iyo dalcadda ugu adeega ardayda waxbarashada soo maraan waayo jaamacadda markuu qofku joogo muddu kolba maalba siduu doono u dhigan karaa mar uu yar xidhan karaa mar uu sii wadan karaa runtii waxaan leeyahay dardaaran badanna boqorre ustaadana ayaa idiin dhameeyey oo cabashooyinka iyo tabashooyinka aan dareenno runtii waa sheegay oo markii jaamacadaha noogu yimaadaan luqadu qayb bay ka yihiin xisaabaadkoo kale qayb bay ka yihiin waxyaalaha aan dareenno maamul xigeenkii dugsiga jaamacadda Camuud boqorre wuxuu idinka soo jeediyey dardaaran tii un baan sii adkaynaya wuxuu yidhi jaamacadda waxaa lagu qaataa culumteeda 2 luqad lagu qaataa waliba gaar ahaan luqadda Ingiriisiga lagu qaataa carabigana kulliyadda qaanuunka iyo diraasaadka shariicada ayaa iyadana lagu qaataa dhibaataad kala kulmi doontaan haddii aydaan luqadda iska sii hagaajinin markaa 3 bilood bal inaad yaq khaas yeelataan oo labadii luqadood aad muraajaca samaysaan oo ay ardayda waxa lagu yaqaanaa inta badan caado u ah fasaxii baan galayo hargeysaan tagiyo jabuuti tagiyo meelaha tagiyo waa laga fiican yahay taa waxa fiican qofku tacliintiisa inuu dib ugu noqdo wixii maadooyin ah ka dhinaa ee uu dhaliin ku lahaa inuu 3 bilood ee uu fasaxa galay inuu fursad u helo oo dib u daalacdo ayaa fiican taa horta waa tii boqorka Abdulaahi
وحكرنا دي كبودين يا halkan waxa laga sheegay oo laga jeediyay dugsiga Annuur qaryatayma dugsiga Annuur qaybtiisii hore ee dufcadii hore ee baxday jaamacadaha ee Amuud markii ay kala galeen ardaydii ka baxday waxa lagu amaanay akhlaaq wanaag baa lagu amaanay adab wanaagsan baa lagu amaanay marka idan idinkuna amaantu oo kala buuxisaan oo aan laydin oran oo kuwii hore way fiicnaana kuwan dambe waa maxaa helay aan la oranin ee noqotaan cilmiga akhlaaqtiina adilaalisan cilmtu علمك كما دعوا شيء أقول لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق والمال إن لم تدخله محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق يعني هو مدين علم وحبرشل كل ذلك واحتطاحا بطاقم قفوا يراه هبان قفوا أخلاقيات لقوكوا حنو أخلاقيات تاجر الوردين أو خلقي سعروا ناس سنين وحل وحدين أو سنين دفعتي اللغات ka qalinjabinaysay dugsiga sare ee Annuur dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay ka mid yihiin maamulayaasha dugsiyada gudoomiyaha waxbarashada jaamacadda Anuud iyo Eelo waalidiinta ardayda dugsiga ee ka soo qayb gashay dhammaantiinba waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أنت أقول أفو ما أنت هو مالي فرحة ومالي هنا أنت أنا وطن والد كناي هذه أدمان وفرحنا مركا أمسكي أنو قوي أو أما امتحان كريا أما حفلة غبصانية أما تكسي كبحية أما امتحان وشيريو أما جائزة قادرة مركا مارنو haddaan waalidiinta nahay aad iyo aad bay noo farxad gelisaa maantuna waxay ka mid tahay maalmaha aanu aad iyo aad u farxno ee aanu ku farxno ubadkayagii aanu ku tacabnay ee tacabkaanu gelinay inaannu aragno iyaga oo maanta ku faanaya wixii ay barteen iyo wixii la gashaday inay soo saaraan run ahaantii aad iyo aad baanu u farxnaa farxad bay noo tahay gaar ahaan aniga halkan dugsigan Annuur iyo qaryadaba waxaa ii dhigta 6 carruura ayaa ii dhigta 2 baa ka baxay oo ka baxayaan dugsiga Annuur 4 kale way soo guurguuranayaan oo kusoo dhex jira markaa farxad gaara ayaan aniga ii tahay rahmatullaahi wa barakaatuh inta badan xaggan wiilasha loo jeedaa xaggan gabdhaha badan loo jeesto dugsiga magaca loo bixiyay waa magac aad loogu farxo weeye Annuur baa leeyahay isagu sida Allah u rumeeyay taasi waa inta dugsiga qalinjabin baa leeyahay qalinjabin baa aad u shikiyay maxay tahay qalinjabin maxay tahay qalin toosin iyo qalin qorashi iyo maxaa loo dhawaayaan waxa ay soo baxay haddana annagu waxaan ku barannay quraanka qalin laga qoro duurka ama laga qoro qaranka oo sida farku sameeya cishada uu ku dhamaado quraanka qalinkaas sidaas loo kala jebin jiray deedna kitaabka laga akhrisan jiray horta qalin jebinayay taagtaanu malaynaya anuu tu kale ma maqalo meel lagu hadlayo qalin jebin horta sidaa u macnaysta waxa la dhaafay adaygiiyo waxa la galay meeshii wax ka akhrisan kara qalin jebin waa taa horta haddaan tu kale oo meel igaga qarsoon jirin weeyaan anaa macnayta aan ka baxo taa qalin jebin waxa ku hadlaysaa horta waa inaad garanaysa macnihiisa qalin jebin baan idiin sharaxayaa garta taa markaan dhaafo halka ducada wixii la idin yidhi baan anna idin idhi waanana wixii la idin yidhi baan idin idhi wax kaloo ku siyaadinayaa ma jiro anuu waxoogaa gabaygaa waanada ku yar darsadaayo waxoogaa xagga gabdhaha ku saabsan baan odhan maanta qarnigii hore tegay gabdhaha qiimo lama siin wiilkaa la qaaddaadi jiro qayb libaax cunay xiddigii qalloocsamay hadduu soo qumaatiyey haddii anay
qudheeda u xumaanoo qabar ka soo yeedhin ninkay qabadhi qaangaadh u tahay maanta waa qani ninkay gabadhi qaangaadh u tahay maanta waa qani qalin qaadataa iyo nin raga qoolka ku xidhaaba ninkay gabadhi qaangaadh u tahay maanta waa qani wax kasii qabweykay qorbaha laba u joogaan wax kasii qabweykay qorbaha laba u joogaan gabdhaha aan qaadaa dhigay ee qiimo badan siiya haddaan weyn qarofrihi la dhalan qayb dhan baa maqan oo reerku waa qaawan yahay qaar iyo idayl intaa guurku kuu soo qab odhan eenad qoolka sudhin wiilka qolqolkiinna joog aabbayu dayrada u dhimanne qolqolkiinna joog aabbayu dayrada u dhimanne wasalaamu calaykum waraxmatullahi waxaan rajaynaynaa inaad imtixaanka soo socda aad u diyaargarowdaan oo aydan seexan oo aydan isdhigan gobolkeenna waxaa ka qalijabinaya secondary ahaan 941 arday 941 arday ayaad u fadhiisanaysaan halkan boorama Somaliland dee waa imsaqur 10 kun dee iyo ku dhowdaan marka nin 10 kun la tartamaya ma seexanaya inta yara ka hadhay ayaama ka hadhay imtixaankii runtii ayaama ka hadhay marka waxaan oran lahaa gutiga dheeshaas kaga dhiga diyaar garooba anuur marka horeba uu ma seexan uu soo jeeday inta wada ku baraarujin lahaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi